madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo salaan sharaf ka qaatay kooxda Bambayda ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. wafdiga madaxweynaha dalka Jabuuti waxaa ka mid ahaa fanaaniin Soomaaliyeed oo muddo dheer dalka ka maqnaa kuwaasi oo ay ka mid yihiin Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo ka mid ah howladii ugu caansanaa dalka, waxayna ka warameen waxay uga dhigan tahay inay maanta dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho. waa dhownahay, waa faraxsanahay, annagoo dhan waa faraxsanahay. farxad kaliya maaha, waa dulduulaynaa. ما شاء الله. حسن أحمد وادي بابتي مدحوين إسماعيل عمر جيلة الله ينودايو ولا الغالية شلو شوك بانو لنا هاي عمري هاي عفاتك الله دايو إلهي لما هدبا نوعينا الحمد لله رب العالمين نكاني مقدسو دالكيجي نكاني ولا هاي النوكاني يمكن waxaan ku kalin dalkeeni kale horta waa salaamantihiin waa 30 saladood aan u maleynayaa ummadda Soomaaliyeed intaan ka maqlin waa la soconaa sheekadooda arintooda dhibaatada jirta in Ilaahay ummadda dhibaatada uu ka qaado dhib baa jira dhibka Allah ka qaado annagana waa soo laabanade meesha ka dhalanyaha ka nagani sidoo kale fanaaniinta ayaa waxaa ka mid ahaa fanaanka reer Jabuuti ee Cawaale Aadan kaasi oo ay Soomaalidu si weyn u jeceshahay wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo gaaro magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Soomaaliya iyo Jabuuti waxay wadaagaan xiriir qoto dheer oo ku dhisan dhiig iyo dhaqan, waxayna booqashada madaxweyne Geele ee Muqdisho sii xoojinaysaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, dhaqanka, siyaasadda iyo waliba ganacsiga.